بسم الله الرحمن الرحيم وهذا أماسنتا محمد سكول كان وحنا بالله لبض كون إيشانتي آخر كيدي عم بالله وحنا قبل الله بقوس وهرين قبل الله وحو هاي A plus A plus وحكو حكت سيد عادة أهند و بلاسان سميي كبعدي وحكا دنبي أدي كورسين كمايكروسوفت MCSA MCSE إلا CCNA CCNB أنك سميي adiga waxaan waday muddo 3 sano ah ayaan dhiganahay iskuulkaas intaan dhiganayna waan shaqeynayay inkastoo junior aan ahay markaan macnaha iskuulka bilaabay shaqooyinkan helay macnaha ay kor u kaceen adiga 3 sano macnaha qiyaastii aan dhiganahay iskuulka ka bacdi waxaan noqday macnaha more senior technical ama third engineer marka intaas ka bacdi waa contractor aan ahay aniga sidayda macnaha waqtigan ku bilaa ilaa hadda contractor aan ku shaqeynayay as a contractor consultant company aan u tagaya few months aan u shaqeynayay bilooyin aan u shaqeynayay ka bacdi waxa way iska dhamaanaysaa shaqadu ka bacdi mid kale aan aadaayay saasaan u hay marka waxaan go'aansaday maadaama aan iskuulkii aan xoogaa aan dhigtay waxaan go'aansaday inaan jaamacad bilaabo marka markii aad global net dhigatay kadib baad jaamacadda tagtay adigoo waxa jaamacadda u tagaysay inteedii badan ba yaqaan exactly sida saxda ah macnaha waxa jaamacadda lagu dhigayay aniga already waa soo bartay waliba waxaan soo bartay jaamacadda waxay dhigayeen wixii ayagoo theory ah laakiin anigu aan handis on han tagay macallimiinta jaamacadda waxay dhigayeen ardadu macnaha xoogaa ila dhiganaysay waa macnaha way ku adkeed laakiin anigu waan aqoonay oo macnaha dib iguma ahayn waxaan mar hore soo arkay aheeday 90% waxa ay dhigayeen oo kale waxa wax iskuulka aan ku soo dhigay aheed oo gacanta ku soo sameeyay ama aan ku soo shaqeeyay aheed marka waxay ku suuro galay taasi inaad jaamacaddii aad wixii garanaysay markii dambana ay ku fudatay markii aad jaamacaddii ka qalin jabinaysay grade maxay baad ku baastay oo kale ma la oran karaa waxay ii suurta gelisay macnaha ayagu laftigooda jaamacadda markaan bilaabay waxay ii fargareeyeen inaan second year ka bilaabo ana waxa go'aansaday maadaama aan jaamacaddii ku cusbahay inaan 3 sano aan iska sameeyo first year ka bilaabo laakiin ardadu meesha ay pressure ka ahaayeen inay course work sameeyaan aniga waxaan waa aqoonay already marka iguma adkeyn oo kale waxaan iska ahay in meesha iska taga galaasyada iska taga lecture iska dhageysta taasna waxay ii fududeysay inaan ku baaso dhibcaha ugu sareeya oo first class ah kadib jaamacaddii baad soo dhigatay waad ka soo baxday talaabada xigtay aad qaaday maxay noqotay talaabo xigtay aan noqday jaamacadda intaan dhiganayay ma shaqeeynin shaqo waa iska joojiyay si aan macnaha aan buundo fiican aan u helo waqti fiican aan u geliyay jaamacadda inkastoo markii dambe aan ogaaday inaan xataa aan shaqeey karay part time laakiin waxaan go'aansaday inaan aanan shaqeynin ka bacdi waxaan jaamacadda markaan dhameeyay waxaan bilaabay shaqadeydii ku laabtay as a consultant as a contractor again shaqadii marka san ku laabtan ilaa hadda shaqadii aan wada waxaan soo shaqeeyay company waaweyn company oo kuwa olyada soo saara DMV la yiraahdaa waxaan kaloo u shaqeeyay booliiska wadankan u shaqeeyay oo Suffolk ama Ipswich booliiskooda u shaqeeyay waxaan u soo shaqeynahay oo waxaan u ahay network engineer hadda waxaan u shaqeeyaa jaamacadda oo Cambridge University aan u shaqeeyaa qaybteeda imtixaanada ayaan waxaan u ahay consultant technical support engineer aan u ahay marka shaqadii aan meeshii ka wada basically ka hor intii aanad bilaabin ba aanad soo gelin industry-gan ma idhaahdayba cilmigan IT-ga maxaa kugu dhiirigeliyay inaad barato oo aad u baran weyday wax kale wallahi wax igu dhiirigeliyay horta macnaha dad aan bartay oo saaxiibo ahayn oo waxna influence ku lahaayeen oo macnaha dadka aan arkay jaamacad ka baxeen oo IT ku shaqeynay anu markaan bilaabay IT-gan waxaan ka shaqeynay dukaan internet cafe ah dukaankaas marka waxa igu imaan jiray yar saaxiibo aan nahay oo kombiyuutarada ii sameeyay oo aad u adag ilaa kombiyuutarku ninkan inuu waxaan oo cable oo kala bixiyo oo kombiyuutarka shaqeynayn oo ka shaqeysiyo macnaha aad ii xiisa gelisay intaanan IT bilaabina waxaan ahay macnaha diploma iyo waxaan ka soo sameeyay college oo accountant ah ka soo sameeyay laakiin marka aan arkay ninkan wuxuu ku sameeynayo iyo taasa ay xiisa gelisay taasana igu dhiirigelisay inaan bilaabo research aan ka sameeyay markaas koorsooyin waxaan tagay iskuulo badan aan tagay
lamida iskuulkan global net iskuullada markaan tegay dad xataa dadaan isu raacnay lacag badan ay noo sheegeen macnaha kooska la sameynayo iyo waqtiga lagu sameynayo uu xadidan yahay weliba ay ofargareynayeen inay shaqo aan ay garantii sameynayaan laakiin waa inaan imtixaanka kusoo baasay igu dhaheen kabacdi iskuulkana la ii sheegay saasaan iskuulkan ku imiday macnaha lacagtii nimankaas ay dhahayeen waxaan u dhaweyn u ahay afkayga hooyana waa lagu dhigayay macnaha taasna waa ii fududeynaysay iminka sidaad ku sheegtay waraysigaaga dhexdiisa shaqooyin badan baad soo qabatay ma jiraan waxyaabo adiga gaar kaa dhigaya oo kaloo ama xirfad aad soo baratay ha noqoto ama globalnet kasoo dhigo ama meel kale kasoo dhigo oo kaa dhex muujinaya shaqaalaha aad ka dhex shaqaynayso taasoo lagu dooranayaba inaad shaqooyinka qaar adiga lagu qaato ها معناها مر حداد شقة دلبني يصير أنت معناها ضبطنا كل ضربنا أبليكيشن ضبطنا إيمانايا وحيابها لوجود دور تمرك وحكم ذا كو مرت إن انترفيو لوجوع وحقوها الرئيس سكيل ك معناها لوبها هي حرفة اللوبها هي ملاد هذه مرك وحان أنا وهو إن أن إسو معناها ما جرى حرفة ديدا إيو وحل لسكحو waxyaabaha la igu doorto marka waxaa kamid ah anu experience-igi hadaad macnaha shaqo xoogaa aad u sareysa aad dalbanaysid ma taqaana waxaan ma kusoo shaqeysa hadaad kusoo shaqeysa maxaad ku proof gari kartaa waa kasoo shaqeyso experience-igi waa haysataa ma haysataa shahaadooyin cadaynayo macnaha marka waxyaabaha aadka aniga igu fududeeya in la ii doorto waxaa u badan inaan haysto shahaadooyin cadaynayo meeshaan waxaan waa kasoo shaqeeyay waxaan cadaynayo waxaan inaan aqaano shahaadooyinkan aan soo sameeyay iyo dabcan xirfadii hore aad hore uga samaysay iyo xirfadii iskuulka aan ka sameeyay iskuulka macnaha xirfad ka soo haysto dabcan iskuulkaani ka timiday waxa dhan wixii IT aan soo barto dhan from bilaab ilaa dhamaad aan ka bartay experience-igu macnaha shaqaday la imaanaysa laakiin inta kale aan ka bartay iminka shaqadaad ku shaqeyso sidaad noo sheegtay waxa tahay la taliye dhanka jaamacaddan Cambridge dhanka imtixaanaadka markay timaado waxay uga baahan yihiin dhanka IT-ga marka consultant-nimada aad ku shaqeysaa waa shaqo caynkee ah dadka iyagu aan garanaynin baan ku shaqeynin oo kale ama jecelna ku shaqeeyaan bal sawir guud naga sii sawir guud haddaan kaa siiyo aniga waxaa la ii qaatay project socotay waa iga horeysay dad badan ka shaqeynayay inaan fududeeyo inaan dhameeyo qaybta macnaha oo technical ahaan inaan fududeeyo IT-gi macnaha application-kii inaan deploy gareeyo oo macnaha infrastructure-ki inaan dhiso marka shaqadeedu waxay tahay inaan meesha tago aniga subaxdii la yiraahdo macnaha waxaan u baahanaa intaasoo waxaan u baahanaa in la sameeyo application intaasoo computer in la dhiso inaan shaqadeedu marka inaan dhiso waaye wixii aan anigu markaas waxaa ila shaqeeya junior staff ila shaqeeya ama dad aan isla midnaha ila shaqeeya dadkaasaan shaqada qaybsanaa marka aniga wax iiga soo aada markaas ayaan qabtaa wixii oo fududna waxaan u dhiibaa dadka junior staffka wixii kale oo technical oo highly macnaha skilled person looga baahan yahay anaa sameeyo waxaan intaas ku dari lahaa macnaha waxa waaye aniga waxaan ka shaqeeyaa qaybta safe and storage waxaan ku shaqeeyaa especially shaqadayda hadda aan u shaqeeyo jaamacadda aan u qabto waxa waaye waxaan ahay VMware macnaha VMware consultant aan ahay waxaan sameeyaa waxaan isticmaalnaa VMware macnaha application macnaha software ahaan si VMware aan isticmaalnaa storage ahaanna waxa waaye waxaan isticmaalnaa money product aan isticmaalnaa waxaan qabnaa HP shirkaddan HP storage oo 3 bar la yiraahdo EMC iyo Dell seefarada aan isticmaalnaa macnaha 90% Dell waaye shaqadaydu marka waxay tahay intaasoo application iyo intaasoo seefo inaan ka shaqaysiiyo basically aan isu keeno dadka qaar baa waxay sheegaan in qofku hadduu ajaanib yahay waddankan joogo ay adag tahay inuu shaqooyinka caynkaas oo kala hela maadaama aad adigu ku shaqaysay nin Soomaaliyan aad tahay waxyaabaha dadka iyagu caqabadaha ka dhiganaya arrimaha caynkaas oo kala maxaad oran lahayd ayna daawanaya horta caqabado way iska jiraan laakiin uma jiraan sida loo sheegayo xoogaa waxaa laga yaabaa qofku markii 2 shaqo 3 shaqo loo soo diido inuu ka dhigto macnaha marsiimo oo ka dhigto kale or anigu madoobaan ahay muslimaan si ahay
cidna shaqo isiimayso iyadoo loo jeedo qof qaloo cadaan ah ninka shaqada raba in loo qabto wuxuu fiirinayaa aniga yaa shaqadan ii qaban kara shaqadii qof u qaban karta ee leh xirfadii uu u baahnaay ayuu raadinaa xirfadaas haddii aad leedahay aad isla timaadaan qof kale ee cadaan ah ama madow ah cidoo doona ha ahaado oo adigu aad uga fiican tahay shaqadii waa helaysaa tan kale macnaha irsaqa ilaaha qora shaqadii aad heli lahayd already way qoran tahay waxaa loo baahan yahay marka inaad kalsooni adigu aad leedahay oo waxaad barata ku kalsoon tahay marka waxaan aaminsanahay inaan macnaha laga dhiganin sabab oo la isaga daayo macnaha shaqo heli maayo macnaha shaqo fudud haddaa heshid ayaduna macnaha qarashkeedana waa fududaanaa meelna ku tegi maysid waa ku daaleysaa laakiin shaqo xirfad ah oo macnaha oo waxaad baratay aad ku shaqaysato haddaad raadinayso waxay u baahan tahay juhdigay u baahan tahay waqtigay u baahan tahay waxay u baahan tahay skills badan u baahan tahay intaas inaad gelisid 2 mar 3 mar ka bacdi waxa waaye expert ku naqanaya wax kasta oo ka hor imaanaya ka bacdina way ku fududaanaysaa interview waxa laga yaabaa aniga mararka qaar la iyadoo interview la igu telefoonka la igu weydiiyo waxaas ma taqaanahay noo sheeg markii aan ka jawaabo su'aalaha anoo face to face u tagin interview shaqada la qaataa especially hadda marka meeshu macna wax kasta jaranjaro waaye jaranjarada sanadaha ugu horeeya ka bacdi waxaad gaaraysaa heer adiga lagu soo weydiisto lagu yiraahdo shaqadan ma noo qaban kartaa qadarku halkiisa dadaalka hala badiyo dhanka markaad shaqooyinka aad doonato ee lagugu yeedhaba interviewga u horeeya la soo fadhiisanayo face to face ka su'aalaha ugu badan inta badan ay ka siman yihiin maxay tahay aad jeceshahay inaad la wadaagto dhalinta technicalka haddii aan iska dhigo meel macnaha technicalka waxaad baratay waxbaa laga weydiinaa laakiin su'aalaha soo noqda ee ay u badan tahay markasta in lagu weydiiyo HR questions la dhahaa oo lagu fiirinayo personality-ga qofka macnaha qofkan ma fit gareynaa teamka oo la shaqeyn doon waxaa kamid ah kale waxay dhahaan weakness-kaaga macnaha maxaad ku xun tahay noo sheeg marka su'aashaas si macnaha haddii aad tiraahdo aniga waxbaba ku xumiyo waa fiicanahay wax kasta waa ku fiicanahay ma jiro qof bini aadan oo wax kasta ku fiican marka su'aashaas aad ay u soo naqnaqataa marka waxaa la rabaa wax oo adiga weakness-na ah laakiin aad positive u bedeli kartid inaad sheegtid oo tiraahdo waxaan ku fiicana waxaan ku macnaha weakness-kayga waxa waaye waxaan xasuustaa aniga su'aashaas waa la weydiiyay markii igu horeysan shaqo raadinayo waxaa la yiraahdaa weakness-ka waxaan dhahaa weakness ma bali aniga marka way ugu qosleen basically qof bin aadan oo weakness lahayn ma jiro marka waxa waaye waxaad is leedahay ma ogtahay khatar iska dhig yan macnaha lagu arkinin wax kasta ku fiican iska dhig laakiin waxa la rabaa wax oo negative inaad positive u bedeshid weakness ma leedahay oo kale waxaan jecelahay oo kale hadaa tiraahdo waxa waaye simple answer waxaan jecelahay waxaan bilaabo inaan dhameeyo waxaa laga yaabaa shaqo inaan soo galo waqtigeyga oo dhamaado shaqada saacada aan shaqay lahay laakiin ay ii dhiman tahay wax yar inaan dhameeyo marka macna waxaan jecelahay inaan intaan dhameeyo ka bacdi saacad ay ugu qaato 2 saac ay ugu qaato waa simple answer waa weakness ay kamid tahay oo waxaad dayacaysaa waqtigii lagu talagalay shaqada inaad ka tagtid familkaaga dayacaysaa kugu tashanaa inaad shaqada ka timaadid waa weakness macnaha laakiin waa weakness oo positive oo faa'iido u keenaysa qofka u shaqeynaysa dhanka haddaynu eegno shahaarooyinka marka shaqo ka shaqeynayso dad qofku waxa uu shaqeeyaa sidii uu nolol fiican ugu noolaado oo family-giisa iyo noloshiisana ugu dabaro shaqadan aad markaa shaqeynayso marka loo eego shaqooyinkii hore nolol ahaan haddaad isbarbardhig ku samayso dhankee tee ayaad door bidaysaa ama sidaad u aragtaa imika noloshana mushaarka haddaan macnaha number anigoon sheegaynin mushaarka waxaa laga yaabaa inaan waxaan shaqeynayay simple macnaha haddaan si fudud uga jawaabo waxaan ku shaqeynayay markaan shaqo caadi ka shaqeynayay waxaan ku shaqeynayay bishii inaan ku helo week hayaanka nolosha qofka u suxula duubta inuu geedi dheer u galo sidii horumar u gaari lahaa noloshu waa buur oo kale la korayo qofku soo dhacaya oo soo kufaya intaasoo dhanna waxaad la kulmaysaa oo arkaysaa caqabado iyo barriers laga yaabo inay kaa joojiyaan waxyaabaha u socdo wax ku farxad geliya wax kaa yaabiya intii aad shaqooyinkan bilaabaysa ma noqoto kuwii shaqooyinka hoose aad qabanaysa ama kuwa sare iminka aad haysabe
wax ha noqoto farxad leh wax ku muruga geliya wax mararka qaar ka joojiyo waxaad sameysay ma jiraan waxyaabo caynkaas oo kale aad noo sheegi karto aad nala sheergaran kartaa والله wax badan oo iga farxiyana waan arkay wax badan oo macnaha iga yaabiyana waan arkay caqabado badan waa iska jiraan mar haddaad wax bilaabaysa caqabado waa badan yihiin horta macnaha waxyaabo farxad geliya waxaa kamid ah maadaama waxaan bartay inaan wax ku helay dhaqaale ahaan macnaha meeshaan joogay laba jibaar ama saddex jibaar aan helay aan ku habi ku aho maanta anoo labisan oo tartiib intaan taga office taga aan ka soo shaqeeyo macnaha saacado yar aan shaqeynayo waxyaabo farxad geliya ku jireen waxyaabaha iga hor yimidana waxaa kamid ahayo kala kow markaad wax bilaabaysid sideeda oo adag tahay waxaan ku soo dhaweynaynin macnaha inaad shaqo raadisid waxa experience u baahan tahay kaliya inaad wixii waa bartay waa aqaanaa shaqan hore ka kala maahan waxa inaad CV diyaarsatid interview skills kaaga inaad macnaha inaad diyaarisid asigana waxaa laga yaabaa mararka ugu maalmaha ugu horeeya macnaha labada iyo saddexda interview ugu horeysa inaad wixii lagu weydiiyo maahay wax kale aad ku jawaabtid marka waxay u baahan tahay laftigeedu waxyaabahaas oo kale waa ka hor imaanayaan saddex mar afar mar haddii reject lagu soo diido oo lagu yiraahdo shaqadii ma helin waxaa laga yaabaa disappointment inay kugu dhacdo macnaha inaad ka niyad jabto wixii markaad ka niyad jabto in dad badan waxay sameeyaan markay ka niyad jabaan waa iska dhaafaan shaqooyinkooda caadiga ah isaga laabtaan ilaan shaqadaas waa fududahay inaad heshid marka intaas waa badan yihiin laakiin waxa waaye intaasaan ka xasuustaa intaad xasuusato shaqooyinkii kala duwanaa ee soo martay shaqadii kuugu adkayd ee aad waajahday maxay ahayd والله horta maadaama waxa aan soo bartay waxaan ku shaqeynayay 90% waxaan iskuulka ka soo bartay ahaday aad uu macnaha iskuulku ii soo diyaariyay wax aan isdhaho maanta saa'iday u adag tahay oo isiraado macnaha aan intaan gacanta ka taagay maan arag horta wali laakiin macnaha way jiraan shaqo macnaha challenge igu sameysay oo macnaha aan xoogaa in ugu naqano macnaha inaan first minute ama daqiiqad saacadii ugu horeeyay aan xaliyo waa badan yihiin hadda midkii shaqooyinka ugu horeeyay macnaha challenge yaashu waxay imaanayaan macnaha shaqooyinka ugu dhibka badan waxay imaanayaan markaad wax ku cusubtahay shaqada ku cusubtahay taban shaqada igu badneed waxay ahaday waxaan shaqada igu horeysay waxaan ahay field engineer aan ahay school oo dugsi sare aan la ii diray inaan shaqo ka soo qabto marka network dhana u shaqeey waay basically waxa computeradii waxa IP conflict ya ka jiray computeradii dhan waxay helayeen macnaha same IP qaadanayeen marka ciladaas waxa way ka shaqeey waayeen iskuulka dhan waxa systemkoodu uu shaqeey waayay waxa down oo ahay aniga waa tagay waa la yaabanaa suurtagal ku tahay iskuulka DHCP wax la dhahay isticmaalaan oo sameeya IP addresses si dynamic u siiya clientiga IP address oo siinaya DHCP ga waa fiirshay si sax ah u siinooya computer kale markaad fiirisidna isla same IP address oo hela alladaas xoogaa aad iigu adkaatay laakiin markii dambe waxaan ogaaday engineer iga soo horeeyay inuu uu sameeyay another DHCP oo same IP address uu bixinayo marka troubleshooting iyo research badan oo markaan DHCP ga aan pingareeyo soo siinayo hostiga iyo waxaas markaan aan daba galay aan research kaas ku sameeyay aan ku helay ciladii saasan ku xaliyay iskuulkuna macnaha aad ay ugu farxeen waqti badan ay ku qaatay sitimaan in ay networkooda oo ciladaas macnaha ay shaqadooda ka joojisay basically waa tahay alxamdulilah waad soo shaqaysay waad soo dhigatay waad soo shaqaysay maantana meel fiican baad joogtaa halkanaad maanta joogto xaggaad jeceshahay inaad uga dhaqaaqdo muxuu yahay higsigaaga nololeed mustaqbalku والله higsigayga nololeed mustaqbalka waxa waaye kulley meeshii macnaha meesha ugu sareysay weli hadda ma gaarin laakiin macnaha waa ku dhawahay waxaan jecelahay aniga mustaqbalka inaan aniga waxaan bartay inaan kula laabto wadankeygii inaan macnaha wixii aan ka qaban karo xagga IT-ga inaan ka qabto aan macnaha consultant company sameeyo volunteer ku shaqeeyo marka mustaqbalka waxaan jecelahay inaan wadankeyga ku laabto aqoonteyda aan geliyo meeshaas dugsigaas aad adigu waagaa dhiganaysaad ka qalin jabisay ilaa hadda uu jiraa arday baana wax ka dhigata jecel iyaguna inay maraan jidka adigu aad martay ee horumarkaad ku gaadhay ardaydaas waxaa laga yaabaa in caawa nasiib u yeeshaan inay muuqaalkaagan daawadaan fariintaad halkan uga gudbinaysaa maxay tahay
والله فرينتان halkan uu gudbinayo waxa waa dadaalo uu gaara dad badan hadda dan in kaga sheekeeyo dadan isla bilowno iskuulkaas welina ka shaqeeya shaqooyinka laybarka ah aan markaas ka wada shaqeey jirnay marka qofku haday dadaasho waxay ku dadaasho way helaysaa marka uu bilaabo qofka waxaan kula tali lahaa inuu waqti geliyo wuxuu sameeynaa inuu jeclaado oo macnaha uu hami u leeyahay hadii aad inta sameyso meesha tartad ka gaari kartaa adoon xataa jaamacad waa aadi kartaa jaamacad inaad ka bilowdo final year xataa ka bilaabi kartaa hadaa u baahatid IT laakiin xataa uma baahna jaamacad adoon jaamacad dhigan meesha tartad ka gaari kartaa marka waxaan kula tali lahay inay macnaha ay hami u yeeshaan inay go'aan yeeshaan 2 sano 3 sano oo ay xoog saaraan ama macnaha 2 sano hada si fiican wax u baratid IT uga baratid waxaan huwa sanadka ugu horeeyay inaad shaqo helaysid marka dhameysid koorsooyinka basic ah marka waxaan kula tali lahaa inay macnaha dadku ay ka faa'iideystaan jaaniskan macnaha waa yar yahay lacagaha lagu dhigo koorsooyinka aan usually oo la midka iskuulkan lagu dhigo waxa waa aad uga badan yihiin hadayna macnaha 3 jeer 4 jeer hadayna ku laba jibaarweynba waqtiga lagu siinaayana macnaha aad uga badan yahay usually waxa lagu dhigtaa 5 maalin kooska caadiga ah oo lagu dhigo macnaha bilooyin qaadataa waqti ku siina macalinkiisa luqadaada kugu hadlaa hada eragan aad ku fahmi weyso English ku fahmi weyso Soomaaliya lagu sharaxa marka faa'iidooyin badan ku jira kooski hadii xataa aad markaas aad fahmi weyso hadana galaasi kala waxa waa xurad u tahay inaad timaado kulli macalinka aniga saasay ahayd markii ugu dambeysay inaad ku naqatid ilaa 2 jeer 3 jeer marka waxaan kula tali lahaa inay ka faa'iideystaan Soomaalidu especially dadka dhalinyarada ah ina macnaha dadkuna macnaha qof hadad aragtid aad uga daysatidna ay fiican tahay waxaan aqaana aniga 100 arday oo iskuulkaas ama isla dhiganay ama ka bacdi gadaashay imaadeen wax ka barteen ee hadda IT ka shaqeeyo professionals ah kana faa'iiday macnaha iskuulkaas